Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada xilligu ha idiin wacnaado. Qofkay maalin u tahay xilliga meel meeshan joogtaan Soomaali weyn waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idinku salaamayaa tii salaanta islaamka tii ugu qiimeeya qadarinta badan. Ummada Soomaali weyn dhammaantiin waxaa laydinka codsanayaa janaalkan Cabdi Official Vlogs inaad subscribe, like and comment and share aad saartaan adinka ku mahadsan. Hanaga hilmaaminina inaad subscribe saartaan janaalka sababtoo ay anagu waxaan nahay walaalihiin, waxaan nahay adinka janaalka adinka ayaa iskale, anagu ma lihin, wuu naga dhexeeyaa. markaas awgeed janaalka waxaad saartiin subscribe si aad ula socotaan barnaamijyaha xiisaha leh oo aynu soo gelinayno janaalka Cabdi Official Vlogs. aniga idinla hadlayana waa Cabdi Nuur. soo dhawaada. ummada islaamka oo dhan waan salaamayaa, Soomaali weyna waan salaamayaa. asxaabtii aan hawada ku saaxiibnay dhammaantiinba kusoo dhawaada janaalka. waxaan laydinka codsanayaa inaad share garaysaan, inaad like saartaan, inaad comment saartaan, sharena aad ku qabataan, asxaabtana aad la wadaagtaan. comedigununa ay muhiim noo tahay, fikradihiina wanaagga leh insha allah billahi kariim. nagastamna insha allah waxaan kusoo qaadan doonaa dadkii programka ku xiga. waxaan kusoo qaadan doonaa haddii la yidhaahdo dadkii ugu badan oo programyada aan soo geliyay janaalka kasoo qortay commentiga. taasna waa muhiim inaan soo sheegnaa, wayna mahadsan yihiin. sida tan ayuu barnaamijka ku bilowday. la socod wanaagsan insha allah billahi kariim. halkaad nagala socotaana waxaa weeyaan Cabdi Official Vlogs. Cabdi Official Vlogs ayaad nagala socotiin. welcome, let's go. waa hadda iyo barnaamijkeen. waxaa jiray arrin aan maalmahan arkayay oo ka socotay social mediaha laakiin aan ka hadlin. waxaan kaloo jira barnaamijkii gooniya oo qiisay oo dhinkaygii kamid ah oona caawa aan soo tebi doono. midka ugu horeeya ayaan marka hore galayay. waa barnaamijkayga xiisaha, waa barnaamijkayga aan hore u waday oo sheeko dhinki ku saabsanay. maalin hore ayaan waxaan la kulmaa hooyo Soomaaliyeed ayay waxay ii sheegtay inay jirto arrin aad iyo aad ayada uga ooyisay. arrintaas oo kula dhacday dalka Sacuudiga. waxaa jirtay ayay tiri guri ayaan deganaay, ayay tiri ilmo ayaan haystay. waxay tiri wiilkayga oo weyn ayaa jiray oo shaqaynayay. waxaa jiray kalay tiri aabbaha ilmaha dhalo oo odagayga ah ayaynu isla joognay. guri weyn maasha allah ayaan deganayn. waxaa dhacday maalmaha kamid a gabadha wiilka weyn ku xigta ayaa waxay aaday banaanka sababtoo waxay aadaa iskuul iyo meel wax laga barto. markay iskuulkii aaday ayay waxay soo baratay wiil Soomaaliyeed halkii ay kasoo barataba. wiilkii Soomaaliyeed markay soo baratay ayay waxay bilaabeen xiriir wanaagsan oo aad iyo aad u xiiso leh. halkaasna ay ka dhex marayso muxubo iyo kalgacayl laisu qaaday. jimco walba in la kulmo amba sabdigoo kale in la kulmo si loo sheekaysto amba waqti laisula qaato. waxaa dhacday ayay tiri gabadhii ayaa maalintii dambe waxay tiri hooyo waxaan aadayaa, wiilkii ayaan lasoo kulmayaa. way baxday. markay baxday ayaan weynay gabadhii. teleefonkeedii ayaan wacnay. teleefonkeedii haddii aan wacnayna waxaan helnay inay nagu tiraahdo hooyo wan qol ayaan ku jiraa, xaaladeyduna ma aqaan siday tahay, wiilkina miila joogo. marka hooyo waan idin soo wici doonaa hadday ilaahay yiraahdo waanan imaan doonaa. anagu waxay tiri ma ogin siday xaaladu tahay ilaa iyo markaa. halkaa waxay tiri ma jiro adress laakiin waxaa jira wadooyin magacyo lagu yaqaano. sidoo kale gabadhu ma sheegin wadada ay xaafada ay joogto, wadada ay tahay iyo halka ay joogto ma sheegin.
taleefonkeedii markii dambe ku celinana waxay tiri wuu dansanaa. saas awgeed ayaynu waxaan sameynay ay tiri inaan sameyno report, laakiin reportkaasu wax micnaa ma sameynayo sababtoo booliisku haddii ay qabtaan gabadha maadaama ay tahay qof sharci la-aana oo aan sharciga wadanka haysan waa lasoo tarxiilayaa. saas awgeed ayaan u dhaafnay tiri inaan booliiska ka dhaafno, laakiin waxay tiri waxaan isku daynay community-ga soomaalida inaan la hadalno, kabacdina aan isku dayno inaynu gabadhi raadsano. waxay tiri wiilkii ayuu weynaayayaan ku yiri hooyo markuu shaqada ka yimid hooyo gabadhi way maqan tahay, please kaala raadi hooyo. wuu raadiyey gabadhii siduu u raadinayay wuu waayay. lambarkii haddii la waco wuu dansan yahay lambarkii, iga raali noqdo haddaan hadalada qaldo because qiiro ayaa ay haysaa. waxay tiri markii dambe waxaa dhacday in xilli dambe habeenkii maray tahay albaabka noola soo garaaco. albaabka haddii noola soo garaacay waxay tiri waa gabadhii. alxamdulilah ilaahay ayaa noo keenaye waxaynu dhahnay soo dhawaaw. gabadha gurigii sidii lagu yaqiin qolkeedii tagta way seexatay gabadhii. waagu markuu baryay anagu wax ma aanan dareemin. gabadha way iska joogtay way fiicnaad waxba ma aysan noo sheegin, anaguna wax ma aanan weydiinin maadaama gabadha ay ahayd gabar wanaagsan. waan iska joognay tiri gabadhi markay 3 bilood marayso ayay waxay bilowday xanuun matag waxyaabo aan la garan karin. siday ahaataba waxay tiri waxaan sameynay inaan geyno dhakhtar gabadhii, markaana lagu sheegay inay uur leedahay oo tahay 3 bilood oo uura. waa arrin la yaab leh. waxay tiri gabadhii ayaynu la hadalay oo la fadhiistay. waxaan ku iri hooyo siday wax yihiin, maxaa qaldan hooyo, uurkanu muxuu yahay, yaa kuu tagay. waxayna sheegtay hooyadeed gabadhii waxay sheegtay ay tiri wiilkii maalintii ay la kulmaysay inuu faraxumeeyey oo daawo si ugu darabiyo, kabacdina saasuu ku faraxumeeyey. sababta ay kusoo daahdana ay tahay taas awgeed taleefonkeeduna oo u dansanay reasonka ama taas awgeed. waxay tiri waan naxnay waxaan ku dhana hooyo dhibaato male, ilaahay ha ku caawiyo, ilaahay ha ku daaweeyo. waxaynu sameynaynaa cunuga haddii ilaahay ku kala keeno waan raadi doonaa ninka, waynu la hadli doonaa, ka horna waan raadinaynaa. aroortii dambe ayaan wiilkayga la hadlay oo ku yiri odagii hooyo iyo odagiyow raadiyo wiilkeen, gabadha magaceesa iyada garanaysa halkuu jooge. taleefonkiisii ayaa la wacay wuu naga qabtay. wuxuu yiri intay joogtiin ayaan ku dhahnay. wuxuuna yiri waxaan joogaa santarka. waanagu santar ma aqaano laakiin alla oge kolay dadka sacuudiga joogaya garanaya meesha santarku ay tahay amba suuqas ay tahay. kabacdii waxaa dhacday gabadhii halkii ayaa aaday. waxaa la raadshay wiilkii. sidii loo raadinayay ayaa loo tegay meel asigoo joogo. waa lala hadloo la yiri gabadha maxaasaan ugu gashay walaal, maxay tahay walaashaas soo ma ahan gabadha xiriirka la dhexeeyay, soo ma ahan gabar wanaag iyo jacayl kala dhexeeyay iyo maxabo. saano maxay tahay haddaad gabadha rabtasa maadna soo sheegtid oo aad awoodin inaad guursato amba aad sugi karin, maadnala soo wadaagtid oo dhahdid gabadhii waan doonayaa halaygu daro. markaasna ma lagu diidan ifan. waxay tiri hooyadu waynu u aroosi lahayn haddii u waxaysanin wiilkii wuu ooyey sidii la sheegayo. wuxuuna yiri hooyo abo walaalo gabadha walaashay waan jeclahay, waan rabay gabadha mana ka maarmo. sababta aan daawada u siiyana waxay idan jirkeeda arko, laakiin dembi ayaan galay. aad iyo aad ayaan uga xumahay qisada dhacday. laalay ogolaaday gabadha haddii ay dhasho in lay siiyo, laakiin meeshaas waxaa ku jiray tiri diintu ma ogolaa because gabar haddii aad guursatid ilaa waa 2 mid. haddii gabadhu guur soo martay oo ay kufsi micnaha xaaraan lagu sameeyo gabadhaas oo iyadu raalli ka tahay waa in la dilaa. hadday gabadhu raalli ka tahay oo ayna soo marin guurna waa in lagu dhuftaa 100 karbaash.
wiilkana sidoo kale hadduu guur soo maray haddii uu soo maray waa same gabadhii wiilku labada dhinacba waa same diiniyan. waxaa dhacday gabadhii maadaama iyadu wixii aynan ogeyn oo daawo la siiyo qalad laga galay, gabadhu waxay noqotay qof dembi la-aan ah. allahu akbar. anagu barnaamijyada ayaan idinla wadaagaynaa, laakiin anagu waxaynu nahay soo gudbiyaasha hawada ku saaxiibay inaan hawada dadkan ugala saaxiibay inay barnaamijyadeena noo socda la gudbinana muhiim ay noo tahay. marka hadalku hadal laaf ma lahane. waxaan kaloo dhahayaa marka talo ayaa laydinka rabaa sidaan dareemayo. midda kale waxaan rabnaa inaan ogaano xaaladu halkay marayso. hadda ayaan kasii wadi doonaa. halka gabadhii way dhashay magii u buuxsamay waqtigii maguu buuxsamay oo gabadhii ay dhashay ayaa waxaa la yiri maxaa la dhahaa niihow, maxaa la dhahaa iisheeg, maxaa la dhahaa iisheeg. micnaha maadaama gabadha isaan qaladkan aga gashay oo dembigan u dhacay, gabadhii way dhashay. culamo ayaa loo tegay, waa la weydiiyey. waxaa la yiri gabadha nikaaxa la sameeyo, nikaaxaas kabacdina nikaax qof kale ha guursada. gabadhan qof kale magu guursada kabacdina haddii ay rabto ninka waa in hadii markaas hadii lasoo furo amba si kale jaaniska la heli karo markaas hala siiyo. laakiin hadda waxaa jaanis ma jiro. markii dambe ayaa la isku dayay gabadhii in lala hadlo. gabadhii waxay tiri ninkan ma doonayo maadaama uu qaladiga galay. arrinta halkaas ayay maraysaa. waana mahadsantihiin. waxaan idin leenahay barnaamijku waa barnaamijkeeni la socod wanaagsan meel boo naga daawanaysan iyo xil kasta. intaa waxaynu leenahay wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. mar walba waxaa ogaataa cid kaa horeysa ma jirto, hore u soco aan ku leenahay. qof walba soomaaliyeed waxaynu leenahay janalkan ku xiran, dadaalkaaga badi. waxaa sameynaysa sameey, cid bini-aadinaha ku tashan, hore u soco ayaynu leenahay. talo alla ayaa iskale, laakiin alla ayaa hayo wax walba. intaad ka dhimanaysid waxaynu leenahay dadaalkaaga badi, hawshaad qabanaysid qabo, dadka walaalahna caawi, garab istaag qofkaad garab istaagi karto, muslim iyo gaalo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. janalkaad nagala socotaana waa cabdi official vlogs. thank you. subscribe, like, comment, share intaba ku qabta. waadna mahadsantihiin. ballanta waa nootaa.